dhalinyaradeenna sidee baan ugu dhaadhacsiin karnaa weeye social media inuu isticmaalo dhanka positive-ka ah in awareness loo sameeyo dhalinyaradii oo laga wacyigeliyo oo nolol sheeg wax kale gudbinayna bari ka maalin ayaga mustaqbalkooda ama background-kooda ay ku yeelan karto saameyn marka labaad in laga soo saaro policy cad oo mintaqana qofkii shuruucdii loo dejiyay ka gudba qabanaysa oo markii la geeyo mintaqana siyaasadii lagu qaado qofkii ama xeerkii uu qabto ama mintaqana markii meesha la geeyo jeelka la geeyo oo mintaqana macna la xisaabtamo dadkan ka daba imaanayo kale aan u badan yihiin waalid oo leeyahay ilmihii wax khaldan ma soo sameyn hadduu ra'yigiisa gudbiyey wax dhibaato ma leh qofkan ra'yiga uu gudbinayo ama waxa uu sheegayo waa inay noqotaa wax wanaagsan dhanka haddii wax wanaagsan laga fiiriyo ama sida ugu saxan wixii loo isticmaalo waxay noqonaa bulsho horumarsan laakiin dhibaatada maanta haysta waxay tahay inaan nahay dadka wax khaldan gudbinaya ka dhalinyar ahaan dadka ugu horeeya dhageysanayana maanta waxa maqan guriga geenayna waa anaga marka badanagu nafteena aan ka bilowno oo wixii dalkeena iyo inaga nafteena saddexaanteena dhibaato noo geenaya inagoo aan u fiirin badeecan fiyuuskani waxaan aan ku helayno bal horta waxa kan dalkaaga faa'iido ma u leeyahay adig biri ka maal waxaad tahamiyaha waxa kugu jira hiigsi dheer maanta waqtiga waxyaalaha ugu badan qof maanta khalad uu galay maanta markuu meel soo istaago aan taqaanaa uu noqdo qof horumaray in laga daba imaanayo hebel waagu saa sameeyay adiga saameyn bay kugu leedahay waa qof walba oo soo baxay hadduu nafsadiisa ka bilaabo يعني waxa uu qabanayna ta wax wanaagsan waxa malanay dalkeen inta ugu badan social media isticmaasho dhalinyaro marka dhalinyaro waxa ugu badan ka fadhiyana waa dhalinyaro marka nafsadeena aan ka bilowno wax wanaagsan dadkeena ka dambeeya iyo kuwa aan dhalin doono aan uga tagno